maanta oo khamiista ayaa lagu wadaa in la mayro kacbada sharafta leh ee sanadkiiba mar la dhaqo xilli sanadkan dhaqitaanka kacbada uu iyadu ku soo aadaya xilli uu jiro xanuunka COVID-19 oo dartiis dawladda Sacuudiga ay u joojisay in dalkaasi dibadda looga soo dhoofo kacbada oo lagu dhaqo biyaha Zamzamka ah ayaa waxa ay bilaabatay xilligii rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatay gaar ahaanna sanadkii furashada Makka wariyaha VOAda Cabdulqaadir Maxamed Samakaab ayaa hadaba arrimahaas wuxuu ka wareystay Axmed Safiina oo kamid ah howlwadeennada Soomaalida ah ee arrimaha xajka maanta ayaa la maydhayaa kacbadeena barakaysan al-Kacba al-Musharrafa ilaahay sharaf iyo karaamaha u siyaadiye in la maydhaano waa amar uu ilaahay siiyay Nabi Ibrahim iyo dhammaan madaxda islaamka ee ka talin doonta dhulkan barakaysan ilaa maalinta qiyaamaha ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri wadahir baytiya lid-daa'ifiina wal-caakifiina war-ruk'i as-sujuud Nabi Ibrahim kacbadan u daahir oo u maydh dadka dawaafaya dadka cibaadeysanaya ee rukuucsanay sujuudsan sidaa daraadeed maanta ay ku beegan tahay maalintii loo qorsheeyay in kacbada la mayro marka goormay soo bilaabatay in kacbada la mayro waa sunna nabi oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa laga soo dhaxlay in kacbada gudaheeda la mayro sanadkii caamul fath ee furashada Makka ee nabigu gacanta ku dhigay magaalada barakaysan ee Makka ayuu nabigu gudaha u galay gacantiisa barakaysan oo ku soo mayray biyaha Zamzamka sidaa daraadeed dhammaan xukaamtii islaamka ee soo martay taariikhda islaamka oo dhan sidaas ayaa loo soo meeray khulafaa raashidiintii baa nabiga ka soo dhaxlay dawladii umawiyiintii cabaasiyiintii cuthmaaniyiintii ilaa dawladda boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa gacanta ku haysay oo saas loo soo meeray waqtigii boqor Cabdulaziz gacanta uu ku dhigay muxuu ahaayay bilowgii qarnigii 19aad ayaa laga dhigay laba jeer in kacbada la meero 15ka Muharram iyo 10ka Shacbaan laakiin 2016 ayaa riyaasada xarameynku ay joojiyeen in la mayro Shacbaan maadaama mu'tamariintu aad iyo aad ay u soo bateen waxa lagu koobay sanadkii in hal mar kaliya la mayro marka waxyaabaha lagu mayro ee kacbada maxaa kamid ah walaal waxa lagu mayraa maa'u Zamzam iyo biyaha qaaliga ee la yiraahdo maa'ul wardi iyo cuudadka ugu qaalisan dunida uu kamid yahay cuudal kambuudi toolada yar aba quraarada yar gacanta la marsado waxa la kala siistaa $20,000 dhowr kun oo noocaas ayaa runtii kacbada lagu mayraa qalabka lagu mayray haday tahay mafiiq haday tahay joogaga ka samaysan fidada qaaliga ah dib looma soo celiyo waa la qaybiyo dadka mayray baa kala qaata waana la kala dhaxlaa guryaha la kala dhigay reemka waxaad ku arkaysaa reerku oranaya awowgay waxaan ka dhaxanay mafiiqdi 1960kii kacbada lagu meeray marka si cajiib ah reemka taariikh weyn ba ku duugan awowba runtii qalabka la kala dhaxlaa dib oo dambaysa kacbada mar labaad lagu ma soo celiyo waa sharaf weyn oo Ilaahay bixiyo waa gartay marka dhaqitaanka kacbada ee sanadkan muxuu kaga duwan yahay sanadihii hore walaal maanta sanadkan sanadadii hore la mid maaha waa sanadkii koronuhu faafay xaramku wali waa xiran yahay oo waxa ku tukado kaliyata imaamka muadiniinta iyo shaqaalaha xaramka kaliyata awal hore waxa meeyri jiray boqor Salmaan baa meeyri jiray ama cidii uu soo wakiisho oo ah amiirka magaalada Makka mukarrama xukuma iyo dhammaan dawladaha islaamka ee dhan 750 dawladood bicisaadkooda diblomaasiga ah safiiradooda ayaa ka qayb qaadan jiray iyagoo ka wakiila dhammaan ummadda islaamka ah ee daafaha dunida ku kala nool ayaa sharafta kacbada in la mayro maadaama amar ilaahayna tay sunni nabigana tay sallallahu alayhi wasallam ayaa wada meeyri jiray laakiin sanadkan waxa mayri doono kaliyata riyaasada xarameynka xafiiska maamul labada xaram oo wasaarad u dhigma iyo amiirka magaalada Makka al-Mukarrama Amir Khalid al-Faisal iyo ku-xigeenkiisa ayuun baa mayri doona safiiradii islaamka iyo ummadii kale ka soo qayb gali jirtay ma imanayaan sidoo kale waxa iman doona mayri doona iyaguna ka qayb qaadanaya sadanatul Kacba reerkii muftaha gacanta ku hayay oo iyagu laantooda aan la gali kareen xaramka waa gartay furihii kacbada ayaa gacanta ku haya hadda muftaha waxa gacanta ku haya reer Bani Shayba oo kamid ah beesha Quraysheed waana shaqo soo jireen oo ilaa waqtigii Nabi Ismaaciil la soo kala dhaxlayay waxa la yiraahdaa sadanatul Kacba kolba beesha ninka u weyn ayaa loo dhiibaa markuu dhintana ninka kale u weyn beesha ayaa loo dhiibaa marka muftahu Makka ayuu ku wareegaa
waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhashay Quraysh shaqada xaramka laga qabanaya way u qaybsaneed oo beel walba shaqay lahayd reer Bani Hashim waxay lahaayeen siqaayaday lahaayeen oo ceelka Samsamkii wasuulka ahaayeen oo dadkii waraabin jireen reer Bani Shaybana waxay gacanta ku hayeen miftaaxa oo waqtiga waxa gacanta ku hayay saxaabigii loo oran jiray Usmaan Abi Dalha intaanu muslimiin ka hor waxa jirtay qisa nabigu uu kaga dalbaday inuu Kacbada u furo isagoo Quraysh ragii waaweyneed kolba u furi jiray markaasuu u diiday Usmaan Abi Dalha inuu Kacbada u furo markaasuu nabigu ku yiri waxa iman doonta maalin Usmaano aan miftaaxa ka qaadi doono way dhacdo maalintii fatxu Makka nabigu sallallahu alayhi wasallam ka uu gacanta ku dhigay isaga saxaabadii rasuulkii ciidamadii ayuu ku yiri Usmaano keen isagoo markaa Usmaan muslimiin maalinta nabigu sallallahu alayhi wasallam Kacbada uu galay uu soo mayray uu ku soo tukaday uu soo daahiriyay markaasuu ka soo baxay buu Abbaas bin Abdul Muttalib oo nabiga adeerkii ahayo siqaayada markaa gacanta ku hayay ceelka Samsamka gacanta ku hayay ayay rasuulkii Ilaahay inoo kulmi sharafta miftaaxa iyo maxay siqaayada ceelka markaasuu Ilaahay ku soo dejiyay Quraan cad intaanu nabigu u jawaabin wuxuu Ilaahay ku soo dejiyay inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam Uthman ibn Abi Talha u yeeray markaasuu balantii ma rumowday way rumowday buu yaa rasuulallah markaasuu yiri idinka qaadi maayo ilaa taalim mooyaane khuduha khalidatan talida ma ya'khudha minkum illa taalim markaas sidii bay beeshii gacanta wali ugu haysaa boqor kasta iyo madaxweyne kasta iyo amiir kasta iyo suldaan kasta dhulkan soo maray oo xukumay markuu yimaado iyagun baa u fura iyagun baana ka xidha kaasi waxa uu ahaa Ahmed Safina oo kamid ah howlwadeennada Soomaalida ee xajka u waramaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo jooga Washington